wax ka jira ma jiraan ciidan dhexdhexaadisa ma jirto weligeen isma gafin anaaba dadka u keeni jiray oo dadka ka raali ka dhexdhexaadi jiray aniga waxyaabahan cabasho ka qaba waa jireen cabashadiiduna wax iska hoose ahayd marxaladan fiirinaya waxba kama jiraan qaabka loo maamulay kulana xilka qaadistiisa anigu ilama wanaagsaneyn waayo xilka qaadista kulana waxa shaqo ku lahayn asaga iyo aniga iyo Fahad bisa shaqo ku lahayn ma ahayn in dadka kale meesha fara badan la keeno waxa boon ma ahayn in saf la galo waxa boon ma ahayn saas ay tahay anagu waa iska yeelnay taladiisa yeelnay midaan kale oo ku saabsan muxuu ahay waxa ka dambeeyo dhan ma waxba isma weydiinba wax la isweydiiba ma jiraan xilka qaadista Fahad Yaasin sidee u aragtay maxaa iska dhahdeen waxba iskama dhihin ma bii sheegin wuxuu yiri go'aan qaadanayo go'aanka hadaan qaato haygu khilaafan ugu dhahay waayahana ku yiri wax waayna ma aqaan baan go'aanka taasu baan ka warhelay marka daba hadlin hadana ma dawqaad waa maasanta waa ku soo gabagabeynaya waxa jirtay tuhun dadka Soomaaliyeed badana ay qabaan waliba dadka ku nool koonfurta iyo bartamaha oo aad wasiir u ahayd oo siyaasadda ku matalayso in lagu adeegsaday dadkaagii waagii barnaamijyada magaaladan ka dhacayeen madaxweynayaashii hore la weerarayay inaanan si dhexdhexaadnimo ah mas'uuliyad ah oo dawladnimo eednan u hadlin oo koox falaaga ku tilmaamtay dadkii magaaladan joogo ilaalo u ahaa madaxdii hore iyo dagaaladii magaalada ka dhacay ma loo qaadan karaa inaanan si waafi ah oo mas'uuliyad oo dawladnimo aadan u shaqaysan oo aad toos ugu xirnad villa Soomaaliya adeer markaas villada asaguna waa ku xiraa waa ku wada xiray kowde ay asaguna waxa waaye markuu go'aanada qaadanayo cidna xog lama qaybsanin cidna wuxuu ma sheegin hatta maalinta oo la qaadanayo maamul goboleedyada waxa waaye duurkii wada hadlayno waxna ima sheegin xilligaas waa wada joognay villada waa la wada joogay hadda mid baan ku sheegaya wax alla wixii danta guud iyo dawladnimada wax u dhimaaya oo aan u arko inay wax u dhimaayaan shalana waa iri maantana waa leeyahay sax ma aha anigu sax ma aha in qoray inta ciidankii la kala qaybiyo oo qoryo la qaato magaaladii hadda madaxtooyada afkeeda iyo jidadkii la xirto waxaas aniga waxaas waxaan ku ganacsanaa maaha xukun waa la helaa waa la waayaa dadkaas noocaas samaynayane xukunka shalay ayaga isu day waayey waxaa loo baahan yahay marka inay dhaqan wanaagsan ay la yimaadaan aniga eed kuma lihin taas adeer dadku waxaa la rabaa inay waxaa la yidhi ama afeef hore yeelo ama adkaysi dambe yeelo hadday shalay ayagu xukunka isu day waayeen ma aha inay maanta aniga dusheena ay ku ciyaaraan waxyaabaha habeenka la yiri markaad war saxaafadeed qoraal Facebook ah soo saartay wasaaradda amniga iyo warbaahintii dawladda waxa la sheegay inta badan go'aanada in adigu qaadan laakiin lagu aqrinayay ama qoraal lagu dhiibay oo madaxtooyadii oo ka soo baxay hay'adina mas'uuliyadda Soomaaliya ma jirtaa wasiir adeer dawladnimadu waa baabuur isku xiran waaye marka luqtana meel dhig motorkana meel dhig saas ma dawladnimada adeer waa baabuur isku wada xiran waana inay wada shaqeeyaan gudaha dawladnimada iyo systemka wax waa ku dhaliili kartaa si qarsoodiya laakiin wixii la wada qaato waa fulinay taasina waxa waaye qof kastoo dawladnimo u bilaabanta waa og yahay systemku waa wada shaqeeyaa adeer wax inta la kala qaato oo midna dul qaadanayo midna gacan qaadanayo oo meel la tagaayo reer hebelana hale waxaas meesha ma yaal laakiin adoo wasiirkii amniga ah ayaa waxa la sheegay inuu fariimaha ku dhiibayo taliyihii aadana mas'uuliyadda Fahad Yaasin adigina soo qaadan wallahi fiiri hadii aan runta la aaminin beenta uu la aamino waa dhibaato kale Fahad Yaasin wax uu dhiiba ma jiraan haba yaraatee intaan shaqada joogana hal maalin ma soo faragelin hal maalin wax ima dirin hal maalinna wax igama codsan niman yahow beentaan la faafinayo la iska daayo yaa weeye marka qofkaas la iska daayo beenta ma huwa madaxweynaha mas'uuliyadda wasaaraha adigu sheeg madaxweynaha ra'iisul wasaaraha shaqa naga dhaxaysay waxa waay maalin baan sarkiinay laakiin Fahadka aad sheegaysaan tan iyo maalintii meesha la magacaabay waxa sameynay ma dhihin waxa bedeli ma dhihin qofkaas qaar wax qaad ma dhihin qofkan wuxuu dhigi ma dhihin weligiiba ma soo faragelin hadda beenta dadku rabaan aanu beenta kama celi karo wasiirka amniga Soomaaliya ayaad ahayd muddadii la weynayay Ikraan Tahliil maxaa wasiirka waqtiga xaaladda noogu sheegi kartaa adeer horta aniga nabad sugidda booliiska ayaa wax ii baara nabad sugiddu waxa ay ii sheegeen sida wax iigu sheegeen waa dadka bulshada ma rabaan oo baasha ma doonayaan aniga nabad sugiddu waxa ay ii sheegeen ayaan haayay haddii lagu qanci waayeen xog kale oo ka duwan oo tii nabad sugiddu soo gudbisay aan ahayn anigu ma hayn qofkii haayna soo gudbiyo ikraamna gabadhaydu waaye dibkay
ay dhibaaya laakiin xogtii ay isoo gudbiyeen saraakiisha amnigu wax ka duwan may heli karin qofkii xog ka duwan noo haaya anoo keeno xogtaas maxay ahayd wasiir xogtaas waxay ahayd in la afduubo gabadha oo la isu dhiibay oo niman qowleysata isu dhiibeen aakhirkana ay ku jilb agteeda lagu dilay waa gartay nimanka qowleysatada sidee uga qabteen xaruntii Habar Khadiijo oo nabad sugidda Soomaaliya ma ogaato ma weydiis maya xarunta inay ka dhex qabteen ba aniga xogtaas ma hayo laakiin xarunta meel ka baxsan oo u dhow laakiin ka baxsan xarunta u xiran xogta la soo gaarsiiyay aniga waa sidaas laakiin xog ka duwan oo ka bedelan oo taas ahayn qofkii haya anoo keeno goorma lagu soo gaarsiiyay ma hadda markay doodu bilaabatay mise muddadii la la'aaba maya maalintii la waayay ilaa maalintaas waa daba soconay meel ku soo sheega waxay dhaheen waqti waa soo baaraynaa waqti qaadatay ayadana sida ay xogtay u soo gaarsiiyeen ayagu waxa waaye waa la isu dhiibay xataa hal meel ma ahayn meel baa la geeyay sida ay sheegayaan meel kale looga sii dhiibay meel kale wax waqti qaadatay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri xogtaasaan hay yaa ku lug lahaa baa lagu yiri waxa ku lug lahaa dad qowleysataan ku dhahay qowleysato marka qowleysatada rabaa inaan xogaan noo jilciso dadka si u fahmaan ma ciidan ba madadan la aqoon ba maxay yihiin adoo ma ciidan ba qowleysata aad hatartaa inaan ka sheego ciidan qowleysata ma hadal qof in ku hadlaa laakiin qowleysata waa qowleysata waa shabaabka iyo dadka iyo muxuu ahaa maafiyada iyo waxaasan ka hadlaynaa moogiyo ma ciidan qarna aan qowleysaleena ehelada ikraan waxay sheegeen inuu taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya u yeeray baabuur ee hay'addu leedahay lagu soo qaaday laga soo qaaday xarunta Habar Khadiijo meel u dhow Hotel City Palace marka waana aag aan la geli karin anigu malihi fiiri adeer anigu waa been malihi anigu waxaan ku yidhi adigii saraakiisha anigu aan madax u ahaa xogtay ii soo gudbiyeen sidaasay ahayd xog ka duwan qofkii haaya oo noo sheegaya oo soo gudbinaya oo maxkamadaha iyo hay'adaha u gudbinaya xaq uu leeyahay laakiin anigu xogtii saraakiisha anigu madaxda u ahaa ay sheegeen xogtaasay ahayd marka hadda marka wax isbedeleen aragtidaada iyo aqoontaada marka fiiriso si wax ku socdaan iyo xogtii lagu soo gudbiyay mis waafaqayaan horta sidee raba go'aanadaas hay'adaha waxbaaraha iskale kadib maxkamadda iskale annaga waxa waaye waxbaan dhegeysanaa waxa ay noo soo gudbeen saraakiishu go'aan haddii la gaarayo iyo waa been iyo waa run hay'adaha waxbaara iyo maxkamadda iskale waa mahadsantahay maalmahan Facebookkaaga iyo Twitterka aad baa uga hadlaysa qoraaladaadu waa badan yihiin daqiiqada u dhaxeeya maxaad kala jeedaa qoraaladan xad dhaafka ah oo aadna markii hore samayn jiray adeer horta anigu shaqaan inaan shaqeeyaan u baahanahay bulshada Soomaaliyeed u shaqeeyo markaan uga shaqeynayo dawladda dhexdeeda uga shaqeynayo waqti uma haynin Facebook iyo laakiin hadda markii dawladdii ay noqotay nin isboqoray markuu asagu go'aan iska qaatay meel ka keenay aan ogeyn bulshada waa u shaqeynaa suugaantaan uga dhex shaqeynaa waa muhiim anigu meel qof iska fariista iska fadhinaya oo maahi waxaan ahay qof dynamic ah oo shaqeynaya haddaan dawladda ku jiro dawladdan ka dhex shaqeynaa bulshadaan u shaqeynaa haddaanan ku dhex jirin bulshadaan u shaqeynaa dad badan sugaysana ma jirto inaan meel iska fariisto dad badan wasiir waxay u arkaan xil waa la isku dhiibi jiray waana la iska qaadi jiray sidaana may dhici jirin waxay ku arkaan inaad ku qafiiftay ku fududaatay hoogaa aadanan maxaan ku rahaa si degan wax u qaabilin marka see kula adeer haddaan qafiifayno meelo wax ka dhib badan aan soo marna anaga haddaan qafiifayno shabaabaa laba jeer aniga hotel lagu qabsaday nagu dhibay dagaaladii soke oo dhan baan soo joogna badankooda adeer adhow khafiif bandhigi laakiin waxaan kuu sheegaa dembiga roobla iga galay ee dhabarka toogashada ah oo inta salaada gal lagu yiraahdo markaad Allahu akbar tiraa gadaal laga feeray kaas waa waxay xanuujinayaan bulshada Soomaaliyeed waa la qaybsanaa dhaqan xumadiisa mana joojinayo waana sheegay waxa uu yahay aqoonna waa u leeyahay laakiin dadka hadda banaanka joogo qaarkood dan leeyihiin oo buunbuuninayaan oo dagaal gelinayaan qaarkoodna ay dana kale oo anu hadda aan qabyaalad iyo wax lamid ay u daafacayaan waxba ka mooga anu laakiin waa la shaqeeyay rooble waana aqaana rooble waa is-aaminay waana isdaarsanay waana khiyaanayay dhabarku iga toogtay saas haday tahay bulshada waa u sheegaa waxa jira xaqayna u leeyahay